Hal qof ayaa ku geeriyooday halka mid kalena uu dhaawac culus ka soo gaaray kadib markii masjid ku yaalla magaalada Örebro ee dalkaasi Sweden shalay oo Jimco ahayd markii salaada khudbadda laga soo baxay ay halkaasi ka dhacday toogasho. Qofka la dilay ayaa lagu sheegay in uu yahay 25 jir ka soo baxa masjidka oo markaa ku soo tukaday salaadii Jimcaha ee maalinnimadii shalay ahayd. Booliiska oo goobta soo gaaray ayaa durbaba bilaabay waxaana gurmad degdeg ah loo fidiyay 2 wiil oo da' 20aad ku jira kuwaas oo ku dhaawacmay goobta, iyadoo ay booliisku sheegeen in mid ka mid ah 2 qofood ee dhaawacu soo gaaray intii ay ambalaasta u sii waday isbitaalka uu dhexda ku geeriyooday. Goobjooge ka mid ah dadkii masjidka ku soo tukaday salaada Jimcaha ee ka soo baxay ayaa ku warramaya in ay indhihiisu qabteen wiilkan 25 jirka ah ee geeriyooday oo isna ka soo baxay masjidka markaa oo uu mid kale hareertiisa ka soo baxay oo uu sheegay in uu ku dhuftay xabbado gaaraya 4 ilaa 5 xabbadood oo talanteed ah. Mid kale ayaa isla goobta ku dhaawacmay. Booliiska ayaa dhacdadan toogashada ah ee ka dhacday masjidka Örebro hortiisa waxa ay la xiriirinayaan shabakadaha dambiilayaasha ee dalkaasi Sweden ka dhisan. Andreas Dahlman oo ka mid ah saraakiisha booliiska ayaa saxaafadda u sheegay in ay ku guda jiraan baaritaan xooggan oo ku saabsan dhacdadan ka dhacday masjidka Örebro dibadiisa. Waxa uuna intaa ku daray in ay weli daba joogaan dambiilayaasha falkan geystay walow uu sheegay in aysan jirin ilaa iyo hadda cid ay u soo qabteen. Booliiska ayaa sidoo kale ku warramaya in arrintani ay xiriir la leedahay kooxaha ama shabakadaha dambiilayaasha ee dalkaasi ka dhisan oo ay sheegeen in arrintani aysan ahayn mid quseysay masjidka ama loogu talagalay in masjidka lagu waxyeeleeyo. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka masjidka magaalada Örebro ayaa jameecadiisa ka codsaday in ay guryahooda joogaan oo aysan masaajidka imaan. Waxa ayna intaa ku dareen in xaaladdu hadda ay degan tahay, kiiska dhacay iyo rasaasaynta masjidka dibadiisa ka dhacdayna aysan ahayn wax quseeya masjidka ama weerar loola dan lahaa masaajidka. Robert Eidfirst oo ka tirsan saraakiisha booliiska magaalada Örebro ayaa ku warramaya in aysan dhacdadani argagaxa leh xiriir la lahayn masaajidka oo ay tahay mid quseyso shabakadaha dambiilayaasha ka dhisan dalka Sweden. Waxa uuna sheegay in aysan ahayn wax loogu talagalay masjidka iyo jamaacada masjidka ku tukanaysay maalinnimadii Jimcaha ahayd. Booliiska ayaa ilaa iyo hadda baadigoob xooggan ku wada dambiilayaasha falkaasi geystay, waxa ayna sheegeen in ay ku daba jiraan iyagoo markhaatiyaasha iyo dadkii goobjoogayaasha ahaa ay su'aalo badan oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo cidda waxa geysataba ay ka wareysteen. Waxa ayna sheegeen in ay soo qaban doonaan oo ay cadaaladda horkeeni doonaan dambiilayaasha falkani foosha xun ka dambeeyay. Halka ay wararka ugu doorkaraan idinkaga imaanayaan waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdulaahi Shiine.